gabadh muslimada Soomaali ah oo Congress-ka Mareykanka ku jirta ayaa kelimo sax ah ku hadashay Israa'iil oo xadgudubka la arko wada sida ay Mareykanka dhaqaalihiisa uga faa'iideysanaysay hal taqriida yar ka qortay Mareykankii waa kacay mana fadhiisanay madaxweynihii waa kacay ila loo fagaareeyay gabadhaas iyo madaxweynihii dhanaaye dalka labadii xisbiba waa kaceen wadanka ka tirin jiray dimuqraadiga iyo jumhuurigiiba waa kaceen gabadha yarta la dagaalamaya xaqiiqay sheegtay markaas waxa la leeyahay hal iscasish hal eriyo leesh boqolaal madow markii la laayana macna male masaajida muslimiinta marka la galana macna male madaxu ka jiray wax ka soo qaad male risaaladaasi waxay ku socotaa qaar badan oo inaga mid ah oo ay cajab gelisay reer galbeedku oo ay la qumanaatay thaqaafada reer galbeedku oo u qaatay adduunkii inuuba ku dhamaaday thaqaafada reer galbeedka oo liberaliyiin iyo cilmaaniyiin ah oo najiidayo noo jiidayo inaan reer galbeedka ku dayano iyo dhaqamadooda akhlaaqdeena iyo dhaqankeena iyo hidaheena iyo waxeenina aynu ka tagno risaaladaasi waxay ku socotaa fasira waa in kale dadka ha lagu dayday reer galbeedka noo fasira maxay yihiin waxyaalaha noocan dhacdooyin nin walba akhrinaya way maanta wax qarsooni ma jiro inta kadib rasaa'il dhowr ah ayaan doonayaa inaan muslimiinta u gudbino khaasatan muslimiinta aqaliyadka laga tiro badan yahay dhulalka gaalada ku nool qodobka koobaadi waxa weeye risaalada koobaadi waxa weeyaan diintiina ku sugnaada aqeedadiina ku sabra wixii dhacaya ha dhaco hal idinku dilo laana wala wada dhiman geeridu waa xaq laakiin inaad tawxiid ku dhimato iyo inaad gaalnimo ku dhimato farqigu intaas waay inaad dhimato adoo tukanayo lagu dilo waa shahaada waa dhimashatii ugu qiimo badnayd waay ruuxa muslimka ah haddii diintiisa loo dilo oo caqiidadiisa loo dilo oo akhlaaqdiisa loo dilo xataa gogashiisa iyo gurigiisaba ha lagu dilay waa shahiid ilaahay baan uga baryaynaa tabaaraka wa tacaala inuu shahaadadooda aqbalo muslimiinta la leeyahay nabigeenna salawaatu rabbi wa salaamu calayhi waxaa ka sugan isaga iyo saaxiibkii abubakar iyo cumar iyo cuthmaan baa waxay fuuleen buurta uxud ayagoo buurta korkeeda saaran ayay buurtii dhaqdhaqaaqday way gilgilatay way ruxatay markaasaa nabigu sal allahu alayhi wasallam buurtii la hadlo wuxuu yidhi uxudow dhaqdhaqaaqa jooji waxa ku dul saarani waa nabi iyo sidiiq iyo laba shahiid waay nabiga garanay صديقنا قرنا وأبو بكر لبدا الشهيديه وعمر يا عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين عمر وحال لقد لي مقالة مدينة أساقو جورا فرين دقال لقمد لين أساقو مسلمين تتوچين يا مساجد كالنبي صلى الله عليه وسلم بار لداوعي كذبنا السداسو كل انتي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومع ذلك النبي قحوق مرخاتك عينه الشهيدية عثمان سيدو كلمة قالت مدينة لقد لي وقال كعدون سميسو خوارجي بلا يخربنا بعد الشيء مقالة النبي قال لقد لي صلوات ربي وسلامه عليه أسقنا فرنت قال لقد مدلين مع ذلك النبي يقول حكوت له إلا الشهيدين يهين لماذا؟ لأن عقيدة اللودلي لأن الدور كي يكالين تي دين تنقلها أيام فافين تيدا اللودلي عدو بادلي ما دام الروح الدين تيسلودي لمسلم كهو شهيد حتى مساجد هاللقدلو كوشي سهاللقدلو بناك هاللقدلو sidaas daraadeed geeri fiican way inaad qabsataan oo diintiina ku dhimataan oo ku noolaataan wax ka fiican ma jiro ilaahayna quraanka kariimka wuxuu inagu baray duruus buu inagu siiyay dadka muslimiinta markay xaalad adag galaan inay diintooda ku dhintaan oo ayna marna diintoodii akhlaaqdooda ka noqonin wax kasto idin qabsada marka diinta ku fara adayga xijaabka ku fara adayga salaad iyo masaajida ku fara adayga akhlaaqda wanaagsan ku fara adayga ku noolaado ku dhinta qodobka labaad ee risaalada labaad waxay tahay dadka aad dhex joogtaan haday iyagu idin nacib yihiin ama qaar idin nacib ku jiraan idinku muslimiin baa tihiin dad risaalo iyo mabda xambaarsan baa tihiin naxariis baad u xambaarsan tihiin khalqiga iyo aadamaha sidaas daraadeed raad wanaagsan kaga taga akhlaaq wanaagsan ku soo jiita dhaqan fiican kula dhaqma diinta gaarsiiya naarta ay galayaan uga naxariista
uddanqada nabigeenna salawaatu rabbi wasalaam marxalada noocaas oo kale markuu ku jiray gaalada dhibkeeda waxa la yidhi isaga dulqaado iska cafi la yidhi nabiga salawaatu rabbi wasalaam marxalo mucayyana yahay maraaxilul istidcaafka ahkaamteedu sidaa u ahay saas daraadeed baa la amray nabiga sallallahu alayhi wasallam dhaqankiisuna saas oo inay dilaan bay isku dayeen kii dul istaagay seefta la dul istaagay inuu dilo damcay markay seeftii ka dhacday oo nabigu qaatay oo uu ku yidhi yaa iga ka celinaya wuxuu yidhi maxamedow nin seef qaada ninka ugu fiican noqo iska kaydaa ka iska tag nabigu salawaatu rabbi wasalaam alayhi saxaabadiisii ku qamaamaysayna waa ka celiya rasuulku salawaatu rabbi wasalaam alayhi way dilayaan asaguna waa cafinaya inay dilaan bay isku day waa caayayaan asaguna diin buu gaarsiinaya tawxiid ku gaarsiinaya noloshiisa salawaatu rabbi wasalaam alayhi baa cidhiidhi buu gelinayaa si uu iyaga uga saaro gaalnimada sidaas daraadeed khalqigan kooda ku nacab ka ku jecel ka kula jira risaalada ina saareen wax way dadka khayr ka gaarsiiyay akhlaaq wanaagsan oo soo jiidatana kula dhaqma hatta haday kuwa idin nacab oo mutatarrifiina ku jiraan midaal waxa inoo ah saxaabadii nabigeena salawaatu rabbi wasalaam alayhi dhulkii ay ku noolaayeen oo Makka markay ka carareen oo ku noolaan waayeen oo ka hijroodeen tolkood baa laayay tolkood baa cadaadiyay xoolahoodii baa la qaatay waa la rafaadiyay qaar baa la laayay markaas loo idmay inay hijroodaan oo dhulka isaga tagaan nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku jiheeyay inay aadaan ardul habasha halka waxa ku nool nin boqor ah oo dad agtiisa dadka lagu dulmiyeen halkaas ay aadeen saxaabadii nabigu sallallahu alayhi wasallam markay ardul habasha tageen kaliya qaxooti mayna ahayn qaxooti baatiin maxaa qaban kartaan ma ahayn waxay sameeyeen oo kaga tageen raad laga tago kii ugu qiimo badnaa waxay sabab u noqdeen inuu soo islaamo boqorkii dalka haystay Najaashi maalinka boqorka ay islaamiyeen ila maantana dhulkaasi diinta islaamku kama dabargoyn raad fiican bay ka tageen sidaas daraadeed raad fiican kaga taga mujtamacaadka dhex joogtaan idinkoo isticmaalaya wasaa'isha ilaahay idin baneeyay tabaaraka wa taala qodobka xigay wax weeye risaalada xigtaay mu'minku meel kasto uu joogo khaasatan meelaha khatartu ka jirto waxa loo baahan yahay inuu taxadarkiisa yeesho taxadara qaata ijraa'aadka wiqaa'iga ah laana shariicaduna waxay ogashay taxadarka bal rabbi wuxuu ina amraya tabaaraka wa taala taxadarkiina qaata isdhiganina caalamkii hore ma aha yurubtii hore ma aha maraykankii hore ma aha balaaya kacday mawjada kacay xaaladuna waa si adkaanaysa talagalkeeda inaad yeelataan ma aha inaad isdhigataan oo u qaadataan isbedelka socda in badan oo kamida wadamada Yurubka waxa qabsanayo ku soo wajahan ahzaabta cunsuriga oo qabta in diinta islaamka iyo dadkeeda Yurub laga saaro waxa soo kobcaya xaaladda marka inaad la socotaan oo taxadarkiina yeelataan waa laga maarmaan waxa sidoo kale to mudan inaan tilmaano Allah tabaaraka wa taala shar kaliya ma abuuro dhacdooyinka dhacaya muslimiinta lagu dulminayo caalamka ka dhacayay khayr badan ba ilaahi tabaaraka wa taala laga yaabaa inuu ka ratibo nataa'ij ajaa'iba ka dhalanayso marmarka qaarkood maxay ilaa rabbi tabaaraka wa taala shar kaliya ma abuuraba barbar waa shar dhacaya laakiin sharkiiba wuxuu ka soo saaraya rabbi tabaaraka wa taala nafci weyn iyo maslaxa weyn saas daraadeed nabigeena salawaatu rabbi wasalaam alayhi munaafiqiintu markay gurigiisa ku been abuurtaan oo xaaskiisa iyo gurigiisa ay galeen oo mudabbil ku dhawaada gurigii nabigu ruuxanayay salawaatu xaaladu adkaatay ayaa Allah xaalada markuu ka warramay wuxuu yiri innal ladina jaa'u bil ifki kuwa been abuurka la yimid ee guriga nabiga ku been abuurto idin kamida waa koox idin kamid la tahsabuhu sharran lakum ha umalaynina inay shar idin yihiin لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم شر ما هي خير بيدينته ورغوريغي النبي قول لا غلي او لا جلجلي حاسكيسي او لا عايي ورير سبي خير كن نقطي لان خيرك كدشي با كوين شرك كجيره sidaas daraadeed i'tidaa'aadka iyo waxyaalaha dhacayay meesha muslimiinta lagu laayo kontonka lagu dilay waxa laga yaabaa inay sabab u noqoto boqolaal inay ku islaamaan taas sababteed kuma yaal inay mustaqbalka ku islaamaan dhacdada sababteed
inay intaasoo khalqiga u garaabaan muslimiintu ay sabab u noqoto inay diinta u soo dhawaadaan saas daraaddeed mar walba waa inaan fiqiya fahamkeeda yeelano dhacdooyinkan allah baa maamulaya reer galbeed ma maamulayo hadday iyagu maamulayaanna si kale u dhigi lahaayeen laakiin allah baa kownka ka taliya ee cid kale kama taliso qodobka u dambeeya wuxuu yahay oo muhiimka ah aafadan muslimiinta qaarna waa qaar meesha tegay oo dhulalkoodii ka tegay qaarna waa qaar meesha ku dhashay oo aan beled kaleba lahayn kuwa dalkoodii ka tegay oo dhulkaasi lagu laynayo ama lagu dulminayo waxa geeyay intooda badan dhulkoodii baa qasmay dhulkeennii baynu qasnay dhulkeennii baynu isku laynay madax khariban baa ina heshay ammaan baa laga waayay noloshii baa adkaatay naftu xaggay kugu aamintaa iyo carar baa la galay sidaas daraaddeed kii dhulkiisa ka tegay in lagu soo celiyo waa in dhulka muslimka la dejiyo waa inay muslimiintu isfahmaan waa in midnimada lagu dadaalo waa in dagaaladan aan macnaha lahayn laga baxo waa in muslimiinta deegaamadooda la dejiyo si kii ka tegayna uu jaanisu ugu soo noqdo u helo ka muslimkee dhulkaa ku ciqaaban ee ku dhashayna mahjar iyo meeluu soo hijirooda u helo haddaan taa la samaynin muslimiinta dhulkaasi waxaa soo wajahaya xaalad adag iyo challenge iyo taxadiyaad aad u culus meel la aadana ma jirto laana dhulkiibaa sidan u yaala carab baa sidan u taalla innagaa sidan u naalla innagaa halkaa isdhignay waa inaan marka fahamkeenni iyo fiqigeennu intaa ka weynaado oo dhulkeenni iyo dalalka muslimiinta in la dejiyo madax wanaagsan oo saalix oo dalka iyo dadka u danqanaysana sidii loo hagaajin lahaa laga fikiro si loo helo muslimiintu ay jaanis iyo cizi iyo sharaf ugu noolaadaan sallu wa sallimu ala khatami al-anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda allahumma 'an as-sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك